بسم الله الرحمن الرحيم maanta xaggan waxaan ku eegi doonaa dawooyinka gaasteriga insha Allah iyo sidoo kale inta ay kala baxaan tusaalahooga iyo macluumaad ku saabsan marka dawooyinka gaasteriga inta badan gaasteriga waxaa sababa xaalado aad u kala duwan oo tusaale ahaan ay ugu horeeyaan dawooyinka NSAIDska loo yaqaano bakteeriyada nooca loo yaqaano H pylori ama Helicobacter pylori risk factor kale oo ay ka mid yihiin stresska iyo sidoo kale xaalado aad u fara badan baa sababa marka iminka ahaan waxaan focus ka saareynaa ama aan diiradda saareynaa dawooyinka iyo inta ay kala baxaan marka dawooyinka kooxda nagu horeysa waxa loo yaqaanaa anti-SIDska loo yaqaanaa dawooyinka SIDA joojiya sida magaca ka muuqata waa lidka SIDA dawooyinkan inta badan waa dawooyin base ka kooban waxaan wada ogsoonahay waxa jira acid iyo base marka ay isla falgalaana waxa dhacaysa waxa loo yaqaan dhexdhexaadin ama neutralization process baa dhacaya saadarteed dawooyinkan anti-SIDsku waxa ay la falgalaan ama ay dhexdhexaadiyaan acid dabiiciga ah ee caloosheenu ay soo deyso marka dhexdhexaadin waa maxay waa fasaqin ama inay bedesho acid-nimadeedii marka dawooyinkan anti-SIDsku marka ay la falgalaan acid caloosha ku jirta way bedelayaan ama way badan rogayaan sidoo kale dawooyinkani waxay awood u leeyihiin inay bogsiyaan boogta nabarku gaadhay ee caloosha taas oo inta badan ay acid sababtay marka hore waa ay dhexdhexaadinayaan marka labaadna waxa ay daweynayaan boogtii ama fursad ayay u siinayaan boogtii inay bogsato dawooyinkan haddaba waa dawooyin aad u fara badan balse laba tusaale oo aad u muhiima ama ayaan soo qaadanay xaggan dawada koobaad waa maxay waa magnesium triasilicate dawo la yiraahdo oo inta badan kiniin ka kooban taasoo la qaato kiniin ahaan loo qaato sidoo kale dawada kale waa dawo suspension ah oo aan tusaalaheenan maanta ku soo qaadanay waxayna ka kooban tahay ammonium iyo magnesium isku jira oo labada dawoba ay sababayaan in acid caloosha ay hoos u dhigaan waxaan ka wada acid caloosha ay dhexdhexaadiyaan sidaas si lamid ah waxa soo raaca dawadan loo yaqaano Simeticone oo ay ku jirto anti-SID therapy ay ka kooban tahay Simeticonka faa'iidada uu leeyahay waa maxay inta badan labadan dawo ee ammonium iyo magnesium waxay sababaan naqas xad dhaaf ah oo caloosha ka yimaada saadarteed naqaskaas si loo hoos loogu dhigo ayaa waxa lagu daray kiimikadan ama dawadan kale ee loo yaqaano Simeticone inta badanna waa sharoobo haddaba waxaad ogsoonaanaysaa in dawooyinkan lala qaadan karo cuntada waqtiga qofku cuntada cunayo uu qaadan karaa ama cuntada kadib uu qaadan karaa maadaama ay xilliga cuntadu oo qofka cuntada cunayo ay acid caloosheenu soo sii acid badan caloosheenu soo sii deyso taasoo macnaheedu dheefshiidka ka qayb qaadanaysa marka dawooyinkani xilliga in la qaato ay aad ugu fiican yihiin sidoo kale habeenkii qofka marka uu hurdada ka soo kaco caloosha oo ololeysa aawadeed dawadan waa uu qaadan karaa marka xaaladahaas baa loo qaataa dawadani waa dawooyinka aanu tusaalaha ku soo qaadanay dawadan magaceega waa maxay magnesium triasilicate baa loo yaqaanaa magnesium triasilicate tablet waxaana loo isticmaalaa gaasteriga ayaa loo isticmaalaa waana iyada oo kiniin ah weeyaan kiniin ahaan weeyaan marka kiniin ahaan baa loo isticmaalaa qofka cuntada ayuu la qaadan karaa cuntada kadibna uu qaadan karaa isagoo calaalinaya jawabal uu calaalin karaa qofka sidoo kale dawadani waxay ka kooban tahay ammonium magnesium iyo Simeticone oo suspension ah iyadana sidoo kale waa iyadoo suspension ah ama dareere ah taasoo uu qofku la qaadan karo cuntada ama cuntada kadib uu qaadan karo ama uu qaadan karo habeenkii marka uu gaas ku soo toosiyo xanuun aad u fara badan uu dareemo marka dhammaan dawooyinkani waa dawooyin aad u muhiim ah oo la isku yiraahdo anti-SIDka saadarteed I hope waxaan rajeynayaa inaad macluumaad dheeri ah ka haysatiin maxaa ka mid ah dawooyinkan anti-SIDka loo yaqaano markayse la qaadan karaa waa inaad ogaataa sidoo kale waxaad maskaxdaada ku haynaysaa dawooyinkan inta badan waxay ka kooban yihiin macdanaha ammonium iyo magnesium iyo macdano kale oo ay ka mid yihiin calcium ayay ka koobnaan karaan sidaa darteed dawooyinka kale ee antibioticska qaar aan la qaadan baa jira dawooyinkan sida tusaale ahaan Cipro iyo dawada kale ee doxycycline loo yaqaano haddii qofku anti-SID qaadanayo at least waa inuu dhaxaysiyo muddo ilaa 2 saacadood ah inuu isla qaato waa ka mamnuuc
ama faa'iidadii dawada ayaa micnihii meesha ka baxaysa. intaa waxaa ku dhan qaybtii koowaad ee anti-seedka. markaan nimaadno kooxdeena labaad waxaa loo yaqaanaa proton pump inhibitorska ama BPI ga waxa loo yaqaano ayaa loo yaqaanaa BPI oo ka u taagan proton pump inhibitorska ayaa loo yaqaanaa. dawooyinkani inta badan waxa ay joojiyaan dhammaan IC-da calooshu soo deynayso ayay joojiyaan. ogow laguma odhan qayb ka mid ah IC-da caloosha meesha laga soo sii daayay ayay joojiyaan, balse waxay joojinayaan dhammaan IC-da caloosha meesha laga soo sii deynayo. saa darteed dawooyinkan waxaa ka mid ah dawada loo yaqaano omeprazole, pantoprazole, esomeprazole, lantoprazole. dawooyinkani waxay isugu jiraan kiniino iyo sidoo kale irbada, iyagoo irbadana way jiraan. tusaale ahaan omeprazole capsule wuu jiraa, isagoo sidoo kale injection ah wuu jiraa. pantoprazole saas la mid ah. marka dawooyinkani way isku jiraan iyagoo irbada ah, inkastoo iyagoo sharoobo ah ayna badnayn haddii lasoo daafuri doono mooyaane. sidaa darteed waxaa la qaataa dawooyinkan 30 daqiiqo ka hor cuntada qofku inta uusan cunin. 30 minutes ka hor inta uu qofku cuntada cunin ayuu dawooyinkan qaadan karaa. marka qofka haddii aad siinayso omeprazole oo kale waxaad ku odhanaysaa 30 daqiiqo ka hor cuntada xabad ka lix habeenkii iyo subaxii. sidaas la mid ah. haddaba dawooyinkan waa dawooyinka ugu quwadda badan ama ugu awoodda badan marka loo eego kuwa kale. dawooyinka kale ee IC-da joojiya waa dawooyinka ugu quwadda badan. sababtu waa maxay? sababtu waxaan niri dhammaan waxay joojisaa dhuumaha IC-da laga soo sii deynayo. IC-da caloosha waxay leedahay dhuumo aad u fara badan oo laga soo sii daayo. markaa tani waxa ay xidhaa dhammaan dhuumahaas ayay xidhaa. markaasaa baad ogsoonaanaysaa insha Allah. marka dhammaan dawooyinkan macluumaadka inaad ka haysataa muhiima. waa proton pump inhibitorska, waxay dhammaan joojiyaan dhuumaha kala duwan ee IC-da laga soo daayo. dawooyinkan waxaa ka mid ah omeprazole, pantoprazole, esomeprazole, lansoprazole. sidoo kale dawooyinkani waa kuwa ugu quwadda weyn marka la barbar dhigo kuwa kale, maadaama ay xidhayaan dhammaan dhuumaha kala duwan ee IC-da laga soo daayo. sidoo kale dawooyinkan waxaa la qaataa cuntada ka hor 30 daqiiqo. waxaana ka mid ah dawooyinkan tusaale ahaan omeprazole capsule baa jira 20 miligram 40 miligram wuu leeyahay. waana capsule weeyaan. waxaana la qaataa subaxii iyo habeenkii cuntada ka hor waa la qaadan karaa. sidoo kale dawadan magaceedu waa maxay? waa pantoprazole weeyaan. pantoprazole iyaduna waxay leedahay 20 miligram iyo 40 miligram labadaba way leedahay. waana la qaadan karaa subaxii iyo habeenkii sidaas la mid ah omeprazole oo kale. dawadan kale waxa weeyaan sidaad magaca u jeediin esomeprazole baa la yidhaahdaa. waa qayb ka mid ah BPI-ga. dooskeyguna uu kala duwan yahay iyadoo lagu saleynayo ama injection ahaan ama tablet ahaan. bismillah. dawooyinka kale markaan u nimaadno waa koox kale oo loo yaqaano histamine 2 ama histamine 2 blockers koox loo yaqaano weeyaan. histamine 2 blockers koox loo yaqaano. dawooyinkani sida ay jirka uga shaqeeyaan ama ay IC-da u joojiyaan waa maxay? inta badan iyagu dawooyinkani waxa ay xidhaan qayb maaha dhammaan, waa qayb ka mid ah qaybaha ama dhuumaha kala duwan ee IC-da caloosha laga soo sii daayo. sidaan wada ogsoonahay dawooyinkii hore ee BPI-ga waxay xidhayaan dhammaan dhuumaha kala duwan ee IC-da laga soo sii daayo, balse kuwan waxay xidhaan qayb ka mid ah qaybaha kala duwan ee IC-da laga soo sii daayo. qayb ka mid ah ayay xidhaan. dawooyinkan waxaa ka mid ah dawada loo yaqaano cimetidine, dawada loo yaqaano famotidine, dawada loo yaqaano ranitidine ama Zantac baa inta badan la yidhaahdaa dawada ranitidine-ta. markaa dawooyinkani waa qayb ka mid ah dawooyinka loo yaqaano H2 receptor blockers ama H2 blockers. markaa dawooyinkan sida kuwa hore ama BPI-ga aan soo sheegnay inta badan waxaa la qaataa 30 minute cuntada ka hor. sidoo kale iyagoo irbada ah way jiraan, iyagoo kinin ahna way jiraan. saan wada ogsoonahay haddii uu bukaanku qaadanayo dawooyinkii hore ee ay hore ku soo xusnay ama BPI-ga loo yaqaano ee omeprazole, lansoprazole, pantoprazole haddii uu qaadanayo oo aad dawooyinkan bukaanka ugu darto ama loo soo amraba, kuwani faa'iido kuma fadhiyaan. maxaa yeelay
kuwana waxay xidhayaan kaliya qayb ka mid ah dhuumaha laga soo sii daayo ICD balse kuwa hore waxay xidhayaan dhammaan dhuumahaas ICD laga soo sii deynayo saa darteed bukaanku inuu labada dawo wada qaato waa ka mamnuuc ama faa'iido uma aha inuu wada qaato mid ka mid ah especially dawooyinkan kale oo omeprazole oo kaliya haddii uu bukaanku qaato ayaa kaga filan saa darteed dawadan halkan aad ku arkaysiin waa dawada loo yaqaano famotidine oo ka mid ah kooxdan aanu halkan ku xusnay cimetidine, famotidine iyo ranitidine marka tani waa tusaale ka mid ah dawooyinkan histamine 2 blockerska sidoo kale dawadan loo yaqaano cimetidine iyadoo dooskeedu kala duwan yahay 400 miligram ah oo xaalado kala duwan loo isticmaalo sida stresska kaasoo sababi kara gaastari waa ay jirtaa iyadoo tablet ah iyo iyadoo injection ahba